السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada daawadayaal waa muuqaal kale oo hacking ah ama ethical hacking muuqaalka kani waxaan rabaa inaan kula wadaago qaabka loo sameeyo password cracking ama brute force attacking ama waxa loo yaqaano password ama username password attacking wax loo yaqaano muxuu yahay hadaba attackan waxa uu yahay markaad rabto targetkaaga ama website ama wuxuu doonaba ha noqdo username iyo password lagu galayo inaad ku gasho username iyo password sax ah ama usernameka iyo passwordka uu websitekaasi leeyahay kulle users ayaa isticmaalaya websiteka ama targetkaaga ama noocu doonaba wixii lagu galayo username iyo password kulle qof walba isticmaalaya waxaa jira haddaba attack loo yaqaano qaabka loo jiiro ama loo ogaado usernameskaas iyo passwordskaas iyadoo la isticmaalayo tools kala duwan haddaba toolskan kala duwan aan isticmaali doono waxay noqon doonaan toolska qaarkood waxaynu ku samayn doonaa usernames iyo password toolka qaarkood waxaanu isticmaali doonaa babsuite-ka ayaanu isticmaali doonaa toolska qaarkoodna waxaanu isticmaali doonaa inay noo fudeydiyaan inaynu samayn karno payloads haddaba brute force attacking-ka ama brute force attacking wax loo yaqaano ama attackan in loo yaqaano noocyo kala duwan ayaa loo samayn karaa ama markaad rabto username iyo password inaad system aad ku gasho ama targetkaaga aad ku gasho noocyo kala duwan ayaa loo samayn karaa waxaan idinka wadaagi doonaa mid ka mida noocyadaasi faraha badan leh ee loo samaynayo haddaba website-kani maaha targetkayga ese waxaan rabay inaan idinku tuso attackan iyo waxa uu ku saabsan yahay attackan waxa ku saabsan yahay kaliya usernameka iyo passwordka inaynu haagarayno xirfado fara badan ayaa lagu sameeyaa nooca attackani mid ka mida ayaan idinla wadaagi doonaa uma baahnin kan waxaan soo furan doonaa kaaligayga waxaan isticmaali doonaa tools kala duwan toolskan intay soo kacayaan waxaan samayn doonaa muuqaalka waxoogaa waan yar dedejin doonaa toolka koowaad aan u baahannahay waxa weeyaan babsuite-ka qayb ka mida attackan ama qayb ka mida password loginka qaababka loo jiiro mid ka mida un baan idinla wadaagayaa kulley xirfado fara badan iyo qaabab kala duwan oo fara badan ayaa loo samayn karaa password loginkaasi inaad usernameka iyo passwordkiisa aad ku jirdho okay babsuite-kayga waa kan soo kacay waxaan isticmaalayaa community versionka ayaan isticmaalayaa next ayaan leeyahay start ayaan leeyahay okay babsuite-kaygii waa kan uu soo kacay si fiican ayuu soo kacay waxaan rabaa inaad tago qaybta proxyga versionskan dambe babsuite-ka gaar ahaan 2022.8.5 versionskiiskan ugu dambeeyey halkii proxyga marka aynu isticmaalayno aynu firefoxka aynu proxyga ama ip adresskiisa ama aynu halkaa interceptiga aynu isticmaali jirnay inaynu proxyga soo gelino kan already wuxuu iska wataa browser gaara markaad open tiraahdo uma baahnid inaad proxygii iyo wixii aad soo geliso waa versionskan dambe waxyaabaha ay kaga fiican yihiin kuwii hore way interceptiga uma baahnin imika waxaan leeyahay off sababtuna waxa weeye aanan ugu baahnayn waxaan rabaa website-kii aynu ku sameynaynay attackeena ama xirfadeena aynu ku tijaabinaynay ayaan rabaa horta si toosa inaan u tago websitekaasi magaciisa waxaa loo yaqaanaa waa ku loogu talagalay xirfadahan hackinka in lagu taskareeyo kaasi ayaynu ku samayn doonaa si aynu isaga ilaalino in laynoo soo raaco wax haddaynu website kale ku samayno kulley waa wax sharci dara ah waxaynu kala kulmi karnaa caqabado kala duwan ayaynu kala kulmi karnaa markaas aynu taasi isaga ilaalino website-da waxaa jira xirfadaha lagu tijaabiyo hackinka kuwaas aynu si toos u tegina kan ayaa ka mid a hadda ii muuqda waaye kan wuxuu leeyahay haddaba login ayuu leeyahay sign up haddaad tagto halkan waxa uu ku leeyahay login halkan hoosta waxaa ku qoran usernamekiisa iyo passwordkiisa waa kan aynu rabno ugu dambeynta ama marka ugu dambeysa inaynu helno inagoo isticmaalayna xirfado kala duwan laakiin hadda waxaynu ka soo qaadaynaa inaynaan garanayn ayaynu ka soo qaadaynaa waayahay laakiin marka isticmaalayno loginkani ama usernamekan iyo passwordkan waxaa jira qaabab fara badan oo lagu gali karo ama targetkaaga ama usernameka iyo passwordka lagu gali karo maxaa ka mid a inaad ku tijaabiso ayaa ka mid a oo tidhaahdo www iyo kaleeto low username ma yahay passwordkiisu 1234 ma yahay waxyaabaha inaad ku tijaabiso ayaa ka mid a laakiin macquul maaha oo logic maaha wax la qaadan karo maaha username qofuu isticmaalayo inaad tidhaahdo waan soo tijaabinayaa waxaa jira tools taasi kaa fudaydinaya oo la isticmaalo toolskaasi waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo usernames iyo passwords in lagu sameeyo ayaa loo isticmaalaa
tools fara badan ayuu haddaba Kali Linux ku leeyahay lagu sameyn karo wax loo yaqaano usernames iyo password. toolskaasi waxa lagu sameyn karaa waxa kamid ah kan loo yaqaano crunch ayaa kamid ah. crunch markaad rabto inaad ku sameyso word listigaasi ama tusaale ahaan waa username. ka soo qaad userkan ama website-kan aad rabto inaad gasho waxaad isleedahay waa website Soomaali leeyihiin kulay Soomaalidu baaswirada isticmaalaan waxaa kamid ah magacdooda kale ayaa kamid ah Cabdi oo kale inuu isticmaalo ayaa kamid ah. laakiin ma garan kartid Cabdi markuu isticmaalayo qaab habka uu isku raacinayo ABC iyo kala D ayuu isticmaali karaa laakiin uu isku dhex dardari karaa. haddaba toolskani waxa lagu sameeyaa word listiga ayaa lagu sameeyaa qaababka loo sameeyo haddaan idin tuso. si aynu isaga soo fudaydino kanaynu imika isticmaalayno waxaan rabaa inaan ka dhigo maximumkiisa 4 digit iga dhiga ayaan leeyahay. minimumkiisa ama digitska ugu yar waxaad ka dhigtaa 4. waxaad iga sameysaa word listiga ama kelmadaha xarfaha waxaad isugu kay dartaa loo yaqaano E S T iyo waxaad isugu kay dartaa saddexda xarfood igaba samee ayaan leeyahay. deetana waxaad igu save garaysaa file loo yaqaano word list igu samee ayaan leeyahay. inter haddaan idhaahdo waa la sameynayaa word listigaygii very good uu dhamaystiray. ls haddaan idhaahdo cat haddaan idhaahdo word list waxaad arkaysaa xarfahaygii aan soo siiyey ee commandka aan ku siiyey ayuu suu kay daray isaga oo ka dhigay ilaa imse line buu ka dhigay wuxuu ka dhigay waa kan wuxuu ka dhigay 8 line ayuu ka dhigay. saad arkayso waa kuwan. haddaba qaabkani waxaan ugu sameeyey dee kani waynu naqaanaa passwordkiisa iyo usernamekiisu waa testi. si aynu haddii aynu ABCD ama ABCD yadii dhammaystiran haddaan isku wada daro dee waqti fara badan ayuu qaadan. san waqtigaas kaga soo koobno keliya tusaale ahaan baan idiin tusayaa. waaye haddaba word listigan lay sameeyey dee intaasoo xaraf saddexdaa xaraf intaasoo jeer ayaa laisku daray. haddaynu ka dhex raadino testi waa kan xakaa waata ku dhex jirta waa lagu sameeyey. adigu toolkaasi waxaa loo isticmaalaa markaad rabto inaad word list usernames iyo password inaad samaysato toolalka loo isticmaalo kaas ayaa kamid ah. haddaba interceptigayga waxaan leeyahay ama qaybtan interceptiga imika waa off weeyaan. on ayaan ka dhigayaa iyo browserkayga ayaan kusoo noqonayaa. halkan waxaan gelinayaa admin ayaan gelinayaa. sidoo kale waxaan leeyahay 2233 ayaan gelinayaa. dito waxaan leeyahay login. marka aan login saa ugu dhufto intaan serverka loo tegin proxygaygan ayaa daatada lasii marinaya. kani proxyga marka laga keeno daatada ma requestiga aan sameeyey halkan waxaan ku dhex sameyn karaa modification datadii ama requestigii la sameeyey waxbaan ka bedbedeli karaa. saad halkan ka arkayso waa HTTP requestigii weeyaan. weli intaan serverka gaadhin ayaanu wax ka bedelaynaa. waa kan halkaas aad ku arkayso waa request weeyaan. way waxaan leeyahay halkan waxa ku qoran uname-kan waxa ku qoran uname-ku wuxuu la mid yahay admin waa wixii aan halkan geliyey datadii halkan aan geliyey weeyaan. passwordku waxa weeyaan 2233 waa wixii aan halkan geliyey weeyaan. toos ayuu datadii laygu geeyey proxygayga. deet halkan waxaan leeyahay right click deetana intruder ayaan leeyahay. intruderkayga marka lay geeyo interceptiga uma baahnin waxaan iska leeyahay off. sidoo kale intruderka ayaan tegayaa. bartan markaad timaado waxaad arkaysaa requestigii weeyaan. requestigani waxaan leeyahay halkan waxaad ii doorataa wax loo yaqaano cluster bomb ii doora ayaan leeyahay si aan labada dhinacba aan u samayn karo payloadskiisa aan u samayn karo. hoosta waxaa ku qoran 2 payload options ayaa ku qoran. payloadka koowaad waxaynu rabnaa inaynu usernamekaasi xarfihii aynu soo samaynay aynu u soo doorano. sidoo kale password haddii aad ka soo qaado inaad password aad hore u soo samaysatay passwordadana waxaad gelin doontaa qaybtan kale ee loo yaqaano kuley waan tusi doonaa. halkan markaad joogo payloadka ayaan toos u tegayaa. deeto halkan markaad timaado waxaanu rabnaa inaynu gelino xarfihii aynu usernameka qofkaasi aynu u malaynaynin. ka soo qaad haddii aad rabto file inaad soo geliso kale load haddaad tiraahdo halkan haddaad ka soo doorato filekii si fiican ayaad u soo gelin kartaa. waa kuwan xarfihii dhammaantood waad soo gelin kartaa laakiin uma baahnin waxaan leeyahay clear ayaan leeyahay. aniga ayaa haddii aan xarfahaas faraha badan aan ku daayo waqti fara badan ayuu iga qaadanayaa. saan waqtigaas isaga yareeyo xarfo yaroo kooban ayaan soo gelinayaa. laakiin haddii aad rabtaan attack caadiya oo website caadiya inaad samaysaan
word listiga qaabkaas ayaa loo soo geliyaa anigu baan soo geliyay rr ayaa soo gelinayaa sidoo kale ee ayaan gelinayaa waxaan dhex raacinayaa username-ka saxda ah oo ah test wada website-ka waa mid attacking-ka ama xirfadaha hacking-ka lagu sameeyo already hoosta waxaa ku qoran test ayaa ku qoran haddii aad testiga xaggan username-ka iyo password-kaad geliso toos ayaad userkaas aad u galaysaa sidaas awgeed halkan hoosta waxaan geliyay test deetana ad ayaan leeyahay halkan markaad ku dhufato payloadkii koowaad weeyaan waxaan soo gelinayaa payloadka labaad waxoogaa yar options ayaan isna detail ayaan gelinayaa waxaan leeyahay www waa kii passwordka weeyaan waxaan leeyahay tttt oo kale for example ama haddii adigu attack caadi aad sameynayso sidii caadiga ahayd ayaad u soo gelin word listigii ama xarfihii faraha badnaa ee aad samaysatay ama aad u maleynaysay qofkaasi inuu passwordkiisa ka dhiganayo waay intaa markaad tiraahdo waxaan leeyahay start ayaan leeyahay start attack ayaan leeyahay maadaama uu community version yahay waxoogaa waxyar ayuu iska soo saarayaa cancel ayaan leeyahay waa kan attackingkaygii waa la bilaabay ugu horeyn waxaa lagu jeegarayay admin iyo www status codeka waa 202 waa redirect ayaa lagu sameeyey test iyo www ayaa lagu sameeyey still waa redirect maaha wax saxa resultii saxa may soo bixin weli uu wadaa wuxuu samayn doonaa 24 isku day ayuu samayn doonaa 24kaasi kii saxdaha ayaa kulley ku jira labadaba waynu soo gelinay yes halkaa test ayuu soo geliyey no qalad waxbaa ka qaldan waayahay halkaa waxbuu soo geliyey weli okay ka ugu dambaysa waayahay very good finish ayuu halkaa soo qoraya haddaad arkayso sidoo kale waxaynu analyse garaynaynaa marka uu sidaa payloadkaaga uu kugu dhammaystiro koodhar kale ayaynu analyse garaynaynaa haddaynu mid ka mid a aynu ku dhufanno ood halkan waa requestigii weeyaan responseka haddaan tago halkaa maxaad ku arkaysaa you must login for example waxaa laisku eegay admin iyo www wuxuu soo saaray ama resultiga soo baxday waxa weeyaan waa inaad mar labaad aad gelisaa haddana waxaa laisku eegay rrw 302 waa qaabkaas ama resultiga ama redirect way waa status code http status codekii weeyaan sidoo kale iyo www ayaa laisku eegay admin ayaa laisku eegay weli wax resultiga lama hayo laakiin hoosta markaad u fiirsato status codekaasi ka ugu hooseeya waa ka duwan waa 200 weeyaan oo macnaheedu yahay succeeded weeyaan waa lagu guulaystay weeyaan markaad isaga aad ku dhufato kii hore waxay ku soo saarayeen you must login ayuu ku soo saaray laakiin kan 200 ka soo baxay langiskiisa haddaad arkaysana waa different weeyaan oo kawan hore waa ka duwan yahay kaasi markaad timaado halkan haddaad timaado wuxuu kuu soo saaraya halku markii hore uu you must login kuu soo saarayey http code ayuu kuu soo saaraya laakiin haddaad halkan renderka toos u timaado maxaad halkan ku arkaysaa waa very good resultigii kuu soo baxday marka username-ka iyo passwordkiisa la geliyo ayaa halkan kaaga soo baxday macnaheedu waxay tahay waxaynu ku guulaysanay pagekaasi username-kiisii iyo passwordkiisii oo ah testi iyo testi waxaana soo baxay pagekan ayaa soo baxay aad wax ka bedeli karta emailkaaga credit cardka iyo phone numberka iyo adresska haddaan taasi si toos aan usoo sameeyo tolo resultiga halkaa iga soo baxday iyo ta halkan iga soo bixi doontaa mid ayay noqon doonaan waynu eegaynaa login haddaan idhaahdo very good resultiga halkan ka soo baxday unbaa halkanna ka soo baxday micnaheedu waxa weeyaan waxaanu samaynay wax loo yaqaano brute force attacking ama password cracking wax loo yaqaano waa xirfad ka mid a xirfadaha lagu haagareeyo passwordada iyo usernameyada iyo dhammaan wixii la xidhiidha usernames iyo password muuqaalka bartan haddaad soo gaadhay waxaan ku xasuusin lahaa inaad channelka haddaanad kusoo birin aad kusoo birto muuqaalka like aad saarto kulley wixii aad bayaamin u baahan tahayna commentiga aad igu reebto waxaan ka soo samayn doonaa muuqaal kale oo ku caddaynayo meesha aad uga baahato in dib loogu noqdo ama lasii faahfaahiyo aad baan idiin salaamaya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu